إلى مهد إسكال مركا كواد مهد عن بلو يدمان لهن يعني إلى مهد علنينا مركا لباد وحان إلى مهد علنتي سكدب عن مهد علنينا بحث قرية سما iyo guddoomiyahooda iyo asxaabta guriga samo dhan oo suurta galiyay inaan barnaamijka isku imaano oo galabta aan halkan ku kulanno waxa sidoo kale aan u mahad celinayaa xuduurka sharafta badan wiilasha iyo gabdhaha quruxda badan halkan yimid si ayagana galabta aan isku weydaarsano waxoogaa yar hadallo ah iyo fikrado intaa kadib waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan hor fadhiyo dhalinyaro Soomaaliyeed oo runtii ma aragtay mustaqbal qurux badan leh oo aniga aan ka mid ahay barnaamijka maanta aan leenahayna uu yahay barnaamij quseeya dhalinyarada marka magaca sida aad ka aragtaan barnaamijka waxa waaye dhambaalka dhalinyarada oo lagu wada ereyga dhambaal waxa lagu wada fariin ama message ama risaala dhalinyarana waa anaga da'da ma aragtay dhalinyaranimada ku jirta marka fariin ay dhalinyaro dirayso dhalinyaran ay u dirayso way oo macnaha dhalinyaro ka timid dhalinyarana ku socota micno weyn ee noogu fadhidaa inaan dhalinyaro nahay isla markaana aan nahay qaybta ugu badan ee bulshada Soomaaliyeed sida la sheego boqolkiiba 70 dhalinyaro waa la yiri marka anaga dhalinyarada micno gooni ah ay haddana noogu fadhidaa inaan ma aragtay nahay bulshada dadkii ugu badneed marka mowduuca aan ka hadli doono waa sidaas wuxuuna quseeyaa wax ma aragtay dhalinyarada quseeya sababtoo waxa waaye qofka dhalinyarada ah wuxuu ku jiraa marxalad la yiraahdo marxalad at-ta'siis ama marxalad al-binaa waa isdhisooya intuu isdhisaayana meelo kala duwan ayuu qofku waxyaabo badan ka soo saameynayaan tusaale ahaan dhalinyarada iyo waxbarashada iyo aqoonta iyo sida wax loo aqriyo iyo gooni waay dhalinyarada iyo xiriirada ay sameynayaan iyo ma aragtay jacaylka iyo jinsiga kala xiriirka ay la sameynayaan haday gabar tahay iyo haduu wiil yahay asagana waa wax muhiim ah in laga hadlo sababta waxa waaye wax hadhow mustaqbalkeena saameyn doona nolosheena hadda inta noolnahayna saameyn doona way sidoo kale marka mowduuca aan ka hadlayno waxa waaye mowduuca cilaaqaadka ama xiriirada ee dhalinyaradu sameeyaan marka kood waxa uga hadli doonaa si guud laakiin qaybaha dambe ayaan faahfaahin doonaa ujeedka aan u sameeynay kulankan iyo waxa aan uga hadlayno marka hore horta qofka bini aadamka dabeecadiisa wuxuu yahay qof social waay bini aadamka dabcigiisa ijtimaaci waay keligii ma noolaan karo wuxuu rabaa marka inuu xiriir sameeyo xiriiradaas ha noqdaan ma aragtay kuwa qaraabadiisa la sameeynayo kuwa ehelkiisa la sameeynayo cilaaqaad waxa jiro saaxiibtinimo ama cilaaqaad dad isla shaqeeysan ama xiriir la sameeyo dadka wax isla barataan iyo waxa jiro xiriiro ma aragtay oo bani aadamku uu la sameeyo haday gabar tahan ay la sameeyso jinsi kale rag ama hadii ma aragtay wiil yahay uu la sameeyo jinsi kale gabdhaha sideedana xiriiradu saddex mid ay ku imaadaan oo qofka markuu xiriir sameeynayo saddex asal ah ima qofkan inuu raadinayo qof dhameystira ama wuxuu haysto wax dhameystira waxay dhahaan takaamuliya ama qofka inuu raadiyo baahi qofkan kale uu qabo oo marka xaajad ay keento ama qofka inuu faa'iido ka raadsado qofkaas kale oo xiriirka la sameeynayo marka waxa waaye takaamul iyo xaaja iyo faa'iido saddexda miciyaar ee qofka ma aragtay xiriirka markuu sameeynayo ay ku dhisan tahay way xiriiradu waxa u sareeya xiriirka la sameeyo Allah subhanahu wa ta'ala oo ma aragtay asmal cilaaqaad kan ugu ma aragtay ugu sareeya ugu faa'iidada badan xiriirka qofka uu la sameeyo rabbigiis subhanahu wa ta'ala erayga salaad maxaa la yiraahdaa silatun bayna al-'abdi wa rabbi waa xiriir u dhaxeeya qofka iyo rabbigiis xiriiradu waxa jiro waalidka ama hooyada ama aabaha ama walaalaha la sameeyo waxa jirto cilaaqaatun bizamaala xiriir ma aragtay saaxiibtinimo aydan bil amal ha ku imaato shaqo ama waxbarasho ha ku timaado waxa jirto cilaaqaad kale oo la yiraahdo cilaaqaatun ma'a jinsi al-aakhar oo loo qeybiyo cilaaqaatun bil hubbi wa cilaaqaatun biz zawaj marka dadka say u kala qaadeen xiriir jacayl ama xiriirkaas intuu ka weynaado dadkii ay guur sameeyaan
sidoo kale marka dhinaca kale laga fiiriyo xiriirada qofka dadka ay sameynayaan labaa loo qaybin karaa waxaa dhihi karaa xiriiro oo iska korkore xiriir sadxi ah maxaa saytaa fiicanta khayr alxamdulillah ina qofka korkor ka taqaano oo kor lay kala xiriirayso ama xiriir waxaa jira cilaaqaad oo dhiib ah oo camiiq ah oo ma aragtay dad gaar ah aan la sameynaysid sidoo kale xiriirada qofka sameynaya waxaa loo qaybin karaa ma aragtay xiriir oo waqti dheer socda waxaa la long term relationships oo ma aragtay waqti dheer soconayo ama xiriiro oo waqti gaaban soconayo calaaqaad qasiiratil mada waqtiyo gaaban soconayo salaam qofka 2 bilood ah course isla qaadanaysaan inta soo xiriireysaan qofka isla noolaanaysiina ama nolosha aad wadaagaysaan ama aad waalid isku tihiin ama ay sadasheen waa cilaaqaad oo long term ah oo ma aragtay waqti dheer qaadanayo way marka intaas ka soo gudubno waa ka hordhac ahaan iyo muqaddam ahaan sidoo kale baahiyaha bini aadamku uu qabo waxa kamid ah in ma aragtay loo tuso inuu jecel yahay asagana uu tuso inuu wax jecel yahay waxa la xaajat al-hub qofku inuu asagana wax jeclaado asagana la jeclaado sidoo kalena dareenka iyo baahida oo loo qabo qofka in la dhaafsado saadarteed marka xaajadaas dadka qaarna waxay macnaha u tirid garayaan oo ay u keensadaan qaab khaldan dadka qaarna waxay baahidaas ay qabaan u raadsadaan qaab saxan haddii qofku qaab saxan u raadsado waa wax ma aragtay qofka noloshiisa oo dhan anfici karta haddii baahidaas haysay iyo xaajada uu qabay uu qaab qaldan ku raadiyana waa wax hadhow asaga dhibaato u keeni karta markaas waxaa laga yaabaa baahida uu qabay inuu helo laakiin waxay u keenaysaa ma aragtay waxyaabo uusan weligii macnaha ka kici doonin marka inta ugu soo gudubno waxaan ka hadlaynaa al-cilaaqaatu bil-hub ma aragtay xiriirka jacayl oo la dhaho sidoo kale waxaa la dhahaa qasiiratul mada waa waqtiyo gaaban jacaylka aslan kelimadan oo jacayl la dhaho ayada naftirkeeda dadka wareerisay waxaan laga yaabaa yacni dadka qaar haddii jacayl iyo waxaa lagu soo qaado phobia ka qabaan marka dadka qaarna waxa haddii jacayl la dhaho waxyaabo xasuusin wanaagsan ku soo dhacay waa marka kelimad ma aragtay dadka dhan ay wareeriyeen oo qofba dhinac uu u fasirtay qof tafsiir uu siiyay waxaan wax yar ka hadlaynaa marka jacaylkaas laana jacaylkaas inaan ka hadalno wuxuu saldhig u yahay mowduuca hadhow aan ka hadli doono oo ah xiriir magac looga dhigay jacayl laakiin aan ahayn oo hadhow qofka wax ka hadleen doono marka inaan wax yar ka dhahno cilaaqaadkaas ama xiriiradaas jacaylka ku saabsiisan maxaa dhahaa hadda haddaan kuweeshaneer inta soo qaadano waraaqo qaybino oon dhahno jacayl maxaa la dhahaa ayaan horna waa ka hadalnaa dhici karto qof walba si uu u tafsiiraya qof walba tacriif uu siinaya jacayl waa nolol xasiloon iyo farxad iyo barwaaqo iyo dhoola cadeyn jacayl maya waa murug iyo hurdo la'aan iyo caatanimo iyo cunto la'aan iyo qaliirnimo dadka qaar maxay leeyihiin maya jacaylku waa indhoole ma aragtay love is blind qofka ma aragtay indhoole waay waxa meesha gacanta kalees ma ogid dadka qaar waxay isticmaalaan ereyga al-wuquu'u fil hub jacayl baa igu dhacay ama hebel jacayl baa ku dhacay fall in love sida jacaylku uu yahay god meel ku yaala madow oo qofku ku dhaxdhacayo kale saadarteed waxay isticmaalaan hebel jacayl baa uu dareemaya ama jacayl baa helay la dhimayo waxa leeyahay hebel jacayl buu ku dhaxdhacay marka waxay noqonaysaa hebel jacayl baa ku dhacay marka taariif kala duwan ay dadka siiyaan tusaale ahaan William Shakespeare waxa laga sheegay wuxuu yiri marka aan wax jeclaanayno waxaan nahay sida caruurta oo kale fikirka ma toosin karno la nuxsinu tafkiir waxaana farxad geliso in la ihtimaam nala siiyo inkaar nala siiyo in la warqabo maanta dhan nala tuso in la jecel yahay waxaana murug gelinayso ihmaalka in la dayaco meel cilla ah looga tago aana murug gelinayso jaaxid wuxuu yiri waxa laga sheegaa buu yiri xukuumada dadka ma aragtay hindida waxa laga sheegaa buu yiri waxay dhigi jireen hindidii hore haddii cishqiga qof uu ka soo muuqdo jacayl hadduu qof ka soo muuqdo rag iyo dumar mid ku rab ha ahaadee oo qof ka soo muuqdo waa baxayna subaxii cidiisa u tageena waa u soo tacsiyeynayna sababta lagu soo tacsiyeynaa waxa waaye
هويلكينا مقبدين جعيلة كسر مقدوة وأحسن الله عزاءكم إلهي صبر ما هذين كسي مركا قفوسي ويقانين يعني جعيلك أما حبك سيداك لو حدهان من قبل وحير وكم من كريم أضر به الهوى فعوده ما لم يكن يتعوده قف بلنا اسكوا ناكسنا أو كريم معها أو كدبنا جعيل إيه هوا أي أدب جلسي أما هالشيء كدبنا وعادة دي وحسن أول أولهين تاس معناه وحاوي قفك مركو واحد جعلاده وحولي ما ذا رقمه يعادوين أول أوصل لهين marka dadka qaar waxay qofka haduuna wax jeclaan waxay leeyihiin waxa la mid tahay sidii ma aragtay hal oo joogta meel keen ah oo ma aragtay saxara ah yaani waxa ka maqan cunto iyo cabitaan iyo nolol iyo wax kale ma haysatid marka waxay dhaheen ida anta lam ta'shiq wa lam tadri mal hawa fa anta wa'irun fil falati sawa yaani waxay dhaheen hadaa wax jeclaanin ama jacayl wuxuu yahay aadan ogeyn adii waxay dhahan geel iyo hal meel macna bahal gooya oo cidlaha joogto isku mid ah tihiin marka erayga jacaylka la yiraahdo waxa way dadkii gabyayna sibay u fasirtaan dadka qaar waxay aaminsan yihiin jacaylku inuu yahay wax dadka ku dheela oo ma aragtay wax dabaal ka dhiga oo dadka ma aragtay maskaxdooda wareeriya saadarteed nin gabyay wuxuu yiri idaa laciba ar-rijaalu bi kulli shay'in رأيت الحب يلعب بالرجال هذا أردت ويري نين كرجع إنه واحد استكاء واتسريه أو ما أردتي كعياري أما هو كديله أصلا وحكى عدد أو ما صار جعل by the time وجعل كدعه وحولها أصلا واحد السوق كديله أصلا دو جعل كدعه بس ولا أصلا كعياري مركا جعل تعريفتي سيارة وحنكو أركاي قبل يرى قيمة بدل فيسبوك ويل باوحود مع الجعيل وحويهي إنه سوق هذا مركو وحير أنت عن دلال بدل جعيل يهوكو ضالعي واحد درجة لهي سوتنتي ذو ميل من مناقل دلون دير أو كمان دعين ودكتوني هذا سو دبيتا مان أرك داد عاد إيل دحقيسو dartaa hiifay dunidu bad aad dadab ku soorto loo tumay durbaanada yaani dadna waa dishay wa min al-hubbi ma qutil wa mut dadna waa dishay dadna waa loo durbaano waa loo alalaasay labadaas u qaybsantay kadibna wuxuu yiri soo dardaarankaadii muu noqon dabeetana ha igu daalin wiil yahow waxaan ahay nin darano dabarkaygu waa calaf seetad u tahay dayr معناها يقول دانا اسكو كي ورورين جعيل كو جير مانتا دن انيغا دبرك اخرا وا علف سيتديدuna waa dayr macna marka dadka qaar wali waxaan ku jirnaa taariif ulhub dadka qaar jacaylka waxay u aaminsan yihiin wax jinni ah oo dadka ku dhacay yani oo laga quraan saaro ya ma aragtay wax aan sahlaneeno hada qofka hadii laga quraan saaro macnaha uu ka baxay ninka la dardaarmay wuxuu yiri marka adiga jacaylkiyo jinniga u yeertuu yiri adiga jacaylkiyo jinniga u yeertay adiga jajuubkiyo jilibka samaystay adiga jidkii iyo jihadii ka leexday jacayl muku galay horta ha jidkii iyo jihadii waa ka leexatay hasanuugin ruux ku siray ma fiicne hasanuugin nolosho hasaawiin jacaylka samir oo dul qaadu ku yiri marka تعريف الحب هدي لو قفا كدو جعيلان تعريفنا سو اسو اركو ايو كو تعريفنا من وجهة نظره ايو جعيلك هذا تعريفنا واسك جعيل سيداس واي marka adiga taariifkaada goonida jacayl siiso hadoo ma aragtid wax ku fiican ku yahay iyo dadka qaarna taariif guud way siiyaan oo jacaylku sidiisa guud waxaan soo dhahnay hadaalay waa baahiyaha qofka bini'aadamka oo in loo buuxiyo ay tahay laakiin hada jacaylkan ka hadlayno waa jacaylka labada jinsi ee kala duwan u dhaxeeya mid kan ka hadlayno